السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مد الصوماليات مركز جوجتان أدبان إذن سلام يا وأنا جوا عفيفة عبد الله ورسمة iyo barnaamijkeeni ahay wax ka oga boog maanta waxaan rabaa inaan ila wadaago waxyaabihii quruxda badnaa ee aan ka soo ogaaday book la yiraahdo The Six Pillars of Self-Esteem yacni lixda tiir isku kalsoonida lixda tiir self-esteemka buuggaas waxaa qoray Canadian American qoray ma aragtay cilmi nafsi yaqaan oo inta badan ka hadla waxyaabahan self-esteemka qorayga magaciisu waxa la yiraahdaa Nathaniel Branden xaqiiqdii sidaan ognahay culimada cilmi nafsiga waxay ka hadlaan self-esteemka waliba waxay ku qeexaan habab kala duwan yani eraya kala duwan oo isticmaalaan inkastoo mar walba meesha gunta la iskugu imaanayo iyo ujeedka iyo self-esteem wuxuu yahay ay ka wada siman yihiin marka qoraygan buuggan qoray wuxuu ku qeexay self-esteemka kalsoonida aan ku qabno awoodeena fikir iyo kalsoonida aan ku qabno awoodeena yacni dhibaato xallin awoodda aan ku xallisan karno dhibaatooyinka asaasiga ah ee nolosha sidoo kale wuxuu ku qeexay yacni kalsoonida aan ku qabno inaan xaq u leenahay inaan guulaysano iyo inaan farxno dareemida aan dareemayno inaan u qalamno inaan baahiyaheena iyo waxyaabaha aan doonayna aan sheegno in ma aragtay hadaf aan gaarno in ma aragtay hadafka aan gaarnay iyo natiijada aan gaarnay guushaas inaan ku raaxaysan karno oo aan ku noolaan karno inaan xaq u leenahay yacni inaan guulaysan waxaa laga yaabaa dad badan waxay aaminsan yihiin inay farxaan iyo inay guulaystaan iyo inay meel gaaraan inaysan xaq u lahayn amaba in dad gooniya loogu talagalay soo marba haddaad tahay qof aaminsan guulaha qaar inuusan xaq u lahayn qof aaminsan haddaad marba tahay qof aaminsan inuusan waxyaabaha qaar samayn karin waxaa la dhihi karaa self-esteemkaaga isku kalsoonaantaada ayaa aad u hooseysa self-esteemka waxa loo yaqaano waa wax ma aragto qofka bini'aadanka oo dhisi karo oo korin karo oo yacni u baahan khibrad u baahan oo mar walbaad nooshahay yacni waa waxaad siyaadin kartid oo aad kobcin kartid qoraygu wuxuu leeyahay lixdan tiir haddii ma aragtay aad samaysid oo aad dhaqan galisid aad baratikaysid self-esteemkaaga waad ku guulaysanaysaa marka waxaan rabaa bal inaan idin soo koobo lixda tiir ee isku kalsoonida midda koowaad ee qorayga inoo sheegayo oo ka mid ah tiirarka isku kalsoonaanta mar walbaad rabto inaad isku kalsoonaantaada aad hantiso oo isku kalsoonaantaada aad ku guulaysato horta marka koowaad waa inaad dhaqan gelisaa inaad u noolaato si miir leh yacni waxaa laga yaabaa dadka adduunka joogo boqolkiiba 30 ama boqolkiiba 40 inaysan u noolayn si miir leh tusaale ahaan haddaad tahay qof mararka qaar daraagis isticmaala ama daawooyin isticmaala si uu waxyaabaha qaar isku ilowsiyo ogaaw isku kalsoonaantaada waxbaa ka dhiman si miir lana uma noolid soo mar walbaad rabtid inaad self-esteemkaaga aad dhistid oo self-esteemkaaga aad ka dhigtid mid sare waxaa la rabaa inaad noqotid qof si miir la u nool qof waxyaabaha dhibaatooyinka soo wajahaya indhihiisa ku arka qof dhibaatooyinkaasna xalista marba haddaadan si miir la u noolaan karin aadan u dul qaadan karin hadallada dadka ku dhahayaan masiibooyinka dhan rabbi ka imaado oo mar walba iska dhacaya yacni waxaad tahay qof self-esteemkaaga hooseeyo soo isku day inaad u noolaatid si miir leh dhaqan geli u noolaanshaha sida miir kale sida yacni indhuhu kuu furan yihiin haddaad taas dhaqan gelisid isku kalsoonaantaada waxbaa ka dhismaya isku kalsoonaantaadana waxay noqonaysaa mid soo kobcayda tiirka labaad oo lagaaga baahan yahay inaad dhaqan gelisid markaad rabtid inaad isku kalsoonaantaada dhistid waxay tahay inaad aqbashid naftaada oo aad la imaatid waxa loo yaqaano self acceptance yacni inaad naftaada aqbashid oo aqbalaada oo aad ogaatid aqbalaada aad naftaada aqbashay inay yacni ku horseedi karto inuu adduunko dhan oo ku aqbalo yacni haddaadan aqbalin qaabka ilaahay kuu sameeyey haddaadan aqbalin dabeecadahaaga qofku aqbalaysa lama arko ujeedku ma ahan self acceptance-ga ama is aqbalida ma ahan inaad aqbalaydo dabeecadaha xun oo la bedeli karo adiga aad leedahay waxa la rabaa dabeecadaha xun oo la bedeli karo iyo waxyaabaha xun oo la bedeli karo adiga aad leedahay inaad bedeshid
waxa laga hadlaya waxay tahay waxyaabaha aan la bedeli karin. Tusaale waxaad tahay qof gaaban, gaabinta Ilaaha kuu sameeyey. Waa inaad horta gaabintaada aqbashid, aad ku qanacdid, aad aaminta adoo gaaban inaad xaq u leedahay inaad guulaysatid, adoo gaaban inaad xaq u leedahay inaad faraxdid, adoo gaaban inaad xaq u leedahay wax kasta oo adduunka yaala inaad heshid, qofkaa xigsana aysan jirin. Adoo madow waxaa la rabaa inaad aamintid wax walba inaad heli kartid, wax walbana kuu sahlan yihiin. Waa in qaabka Ilaahay ku abuuray aa aqbasho, cilladaha qof walba cilladuu leeyahay, cilladahaagana aad aqbasho. Yacni waxaan ka hadlaa kuwa aan la bedeli karin. So mar walbaad adigu is aqbasho waxay kuu horseedi kartaa arrintaas inuu adduunku ku aqbalo, dadka kalena aysan waxba ka dhihin, yacni sababtoo adaaba is aqbalaba. Tiirka saddexaad ee loo baahan yahay inaad dhaqan gelisid markaad rabtid inaad isku kalsoonaantaada aad ma aragtay aad hormariso waxay tahay, yacni waxa loo yaqaano mas-uuliyad inaad qaado. Yacni inaad mas-uuliyadooda qaadato ficilada aad sameynayso, inaad mas-uuliyadooda qaadato go'aamada aad sameynayso, inaad mas-uuliyadooda qaadato wax walba oo adigu aad qaladay iyo wax walba adigu aad saxday. Yacni inaadan marmarsiyo raadin aadan dhihin anigu waxaas inaan qaldo amaba waxaas inay dhacaan waxaa u sababahay qofkaas. Waxaa la rabaa inaad wax kasta adiga aad qaladay ama wax kasta adiga aad saxday inaad mas-uuliyadooda qaado oo aad mas-uuliyad la imaato oo aad mas-uul ka noqoto naftaada waxyaabaha ay sameynayso iyo naftaada hadallada ay dhahaydo. Inta badan yacni arrintan waxay la xiriirtaa waxaan loo yaqaan is aqbalida. Markaad adigu is aqbasho waxaad awoodaa haddana inaad mas-uuliyadooda qaado wax walba oo aad sameyso. Soo isku day inaad mas-uuliyadooda qaado waxaan aad sameynaysid iyo qaladaadka aad galaysid. Taasina waa qodobka saddexaad yacni ay ka saaciday inaad isku kalsoonidaada aad kor u qaado. Midda afaraad ee lagaga baahan yahay inaad dhaqan gelisana waxa loo yaqaanaa self assertiveness. Yacni inaad sheegtid waxyaabaha aad rabtid, waxyaabaha baahiyahaaga inaad sheegtid, waxaad doonaysid inaad sheegtid oo aad cadday kartid waxa gudahaaga ku jiro. Aadan marnaba la cabsanayn. Yacni inaad tahay qof codkar ah, fikirkiisa dhiiban kara oo aad aamintid fikirkaaga iyo erayadaada inaad adigu leedahay, baahiyadaadana inaad sheegi kartid oo wax kastaad u baahan tahay aad caddayn kartid, wax kastaad doonaysidna aad u caddayn kartid, wax kastoo ku dhibayana aad ka hadli kartid. Yacni inaad codkaaga dhiibatid, inaad aamintid, aadna dhaqan gelisid inaad codkaaga dhiibato mar walba. Waxa ku dhibaya inaad ka hadasho, waxaadan rabin inaad ka hadasho, waxaa rabtid inaad sheegtid, waxa aad doonaysid iyo waxaad jeceshahay inaad sheegtid. Yacni inaad isku daydid inaad arrintaas dhaqan gelisid oo naftaada aad qeexdid, waxa gudahaada ku jiro aad qeexdid, dadka aad u soo bandhigtid, arrimahaaga dadka aad dadka codkaaga u dhiibatid oo aadan la aamusin. Qodobka shanaad ee ka mid ah tiirarka lagu kobciyay yacni isku kalsoonaanta wuxuu yahay inaad u noolaato si ujeeddo ah. Waxaa laga yaabaa dadka qaar uma noolo si ujeedaysan uma noolo. Waxaa laga yaabaa subaxdii waa la soo kacayaa ilaa maantii wixii ka hor imaadaa la sameynaya, habeenkii waa la seexanaya, go'aan lama qaadanayo, wixii subaxii ka hor imaadaa la sameynaya. Yacni inaad ujeed yeelatid, hadaf aa lahaatid, hadafkaasna aad isku daydid inaad fulisid oo go'aan samaysatid oo ujeed u noolaato. Haddaad bilaa ujeed tahay aadan ujeed lahayn oo aad ka baqaysid maanta inaad ujeed samaysid, waxaa laga yaabaa isku kalsoonaantaada in naaqus ku jiro. Soo isku kalsoonaantaada si aad kor ugu qaado, isku day inaad ujeed u noolaato, hadaf aad samaysato, yool aad samaysato, yididiilo aad lahaato. Qodobka ugu dambeeya ee ka mid ah tiirarka lagu dhiso isku kalsoonaanta waxay tahay in aad dhaqan geliso waxa loo yaqaano personal integrity. Yacni personal integrity waxaa la yiraahdaa qofka ficilkiisa iyo qofka hadalkiisa iyo ficilkiisa inay islahaadaan. Dadka Soomaalida waxay dhahaan qofkaas afkiisa iyo dhagihiisa isma maqlaan. So waxaa la rabaa afkaaga iyo dhagahaaga inaad ismaqashiisid. Hadalka maanta aad tirahdid inaad ficil u bedeshid, waxaad tirahdid waa sameeyaha inaad samaysid. Haddaad tirahdo qof berriyaan kula ballama aad la ballantid. Yacni inaad noqoto qof daacad ah oo wixii uu yiraahdo wuu sameeyaha aad samayn karto. Inaad noqoto qof ballan qaadi karo oo wixii ballanta uu qaado inaad fulin kartid.
in yacni qofkii uu yiri waxaasan bedela dabeecadaasan iska bedela qof bedeli kara inaad noqoto oo afkaaga iyo dhagahaagu inay ismaqlaan haddaad arrintaas isku daydid inaad dhaqan galisid oo aad joogtaysid oo maalin kasta aad noloshaada ku dabaqdid oo markaad aragtid wax beena inaad sheegi rabtid ama wax ballanbaxya inaad sheegi rabtid inaad iscelisid dadka inta badan beenta sheega yacni ka been sheega naftooda ama waxaysan bedelayn ka been sheega dhaha waxaasan samaynaynaa ama aan samayn dadkaas isku kalsoonaantooda aad bay u yartahay so si aad isku kalsoonaantaada u hormarisid isku day afkaaga iyo dhagahaaga inay ismaqlaan so markaa intaasay ku eg tahay 6dii tiir ee maaragtay isku kalsoonaanta dhisayay haddaan dul maro waa inaad dhaqan gelisid u noolaashaha si miir leh waa inaad dhaqan gelisid naftaada inaad aqbashid waa inaad ma aragtay dhaqan gelisid si aad mas-uuliyad uga qaadi lahayd qaladaadka aad samaynaysid waa inaad sidoo kale dhaqan gelisid oo aad baraatikeydid qaabka aad codkaaga u dhiiba lahayd erayadaada aad u sheegi lahayd dareenkaada aad u cabiri lahayd waa inaad sidoo kale aad dhaqan gelisid yacni sida ugu noolaa lahayd si ujeedo leh si aad u noqon lahayd qof hadaf leh qof yool leh midda ugu dambeysana waxay tahay waa inaad noqotaa qof afkiisa iyo dhagihiisa ismaqlaan qofka waxa uu sheegayo ka run sheego qofka waxa uu ka hadlayo yacni ficil ku bedela waa inaad noqotaa so marka waa halaha buugaas aan kasoo faa'iiday halaha xigmadda buugaas aan kasoo qaatay waa intaas waxaan rajaynaa adigan idaawanaya inaad ka faa'iiday haddii jiro buug aad jeclaa lahayd inaan soo qulaaseeyo amaba aan soo koobo macquul inaan horey u aqriyay amaba haddaad soo codsato waxaa laga yaabaa inaan codsigaaga dartiis aan buuggaas u aqriyo hoos kusoo qor waadna ku mahadsantihiin daawashada videogan daawatay iyo ma aragtay waqtiga aad gelisay inaad videogan daawato waana rajaynaa inaad wax ka faa'iiday waanan kugula talin lahaa inaad buuggaas aqriso qof walbana uu aqriyo so dhammaantiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu